Asalaamu calaykum. Maanta waxaan rabaa inaan idiin sharxo sababta keentay inaan u aaminsanahay inay Bitcoin tahay coin-ka kaliya ugu fiican ama ay ka fiican tahay sida stock exchange-yada, sida kambaniyasha la maalgashto iyo dahabka iyo forex-ka. Waxaas dhan inay ka fiican tahay. Sababta igu kaliftay inaan aaminsanaado waxa weeye waxaan Bitcoin ku arkay 7 calaamadood oo aanan ku arkin kuwaas oo aan soo sheegay oo dhan. 7 calaamadood marka waxaan idinku dayaynaa ka codsanayaa inaad si fiican u dhuuxdaan, u fahantaan, isku daydaan inaad fahantaan. Hadda sharaxaadeydan waxaa dhici karta inaan idin dul marto ama idin fahmin, laakiin muhiimadda 7 qodob ay leeyihiin qofkii fahma waxaan aaminsanahay inuu haddaba ku ordayo. Dowladaha sababta keentay in haddeertan ay u kala yaacayaan ama shirkadaha waaweyn oo hadda Mareykanka qaarkood ay u gadanayaan 7 qodob ayay arkeen. Marka 7 qodob 7 qodob oo sahlan maahan. Waxaan leeyahay aad uga fiirsada. Bitcoin boob culus ayaa ka socda, aad iyo aad u badan ayaa ka socda. Aan idin bilaabo 7 qodob. Mid ugu horeysa 7 qodob anaa soo koobay, laakiin haddaad meel kala gashtaan ayagoo si kale u sharxaya arkaysaan, laakiin waa isku mid isku macna imaanaysaa. 7 qodob midka ugu muhiimsan oo aaminsanahay inay tahay midka ugu muhiimsan waxaa weeye censorship less waxa la dhaho. Oo hadda YouTube markaan video soo galiyo YouTube wuxuu ku sameynayaa videoga censor waxa la dhaho oo kala baaraya oo kala saaraya hadduu videogiisa ku qancin wuu tuuraya ama qayb buu soo daynaya. Laakiin Bitcoin cid saa ku sameyn karta ama cid kala fatishi karta ama firfiirin karta ma lahan. Waa wax open ah, qof walba open u ah. Arrintaas waa arrin aad unique u ah oo cajiib u ah oo aan la heli karin. Midka labaad waxa weeye borderless waxa la dhaho inaysan xuduud lahayn. Arrinta qodobka labaad muhiim ka dhigaysa waxa weeye haddii hadda maanta waddankaad joogtid lagaa cayriyo oo ama lagu dhaho ka bax, sidee u qaadan lahayd haddaad guri leedahay, hanti guud leedahay ama dhul leedahay ama waxay kugu noqon lahayd dib dowladda la wareegaysa. Laakiin kan hal daqiiqa ku dirtid ayaa ama number aad maskaxda ku xaftid kaliya ayaa kugu filan oo aad airport-ka la mari kartid, xuduudka la mari kartid, meesha doonto u diri kartid, waddan kale markaad tagtid computer-ta furtid la soo bixi kartid. Qodobka saddexaad oo aan number 3 geliyo waxa weeye security-ga. Aad iyo aad ayay systemkan ama shabakadan ay Bitcoin dhistay waxay tahay shabakad aad secure u ah oo aan la dhici karin. Waxaa lasoo tijaabiyay 12 sano ugu dambeysay. Marka security waxaa ka mid ah inta hadda 100 milyan hadda ku siiyo 100 milyan waxa wareer kugu noqon lahayd meesha ku xafidi lahayd bangi baad dhigataa masirtaada hoosteeda gashtaa ama dhulka ku xabaashaa. Haddaad dhulka xabaashid aboor baa cuni kara, saliidaada dood biyaa qaadi kara, bangiga waa la xiri karaa ama qofka iskale ayaa kaa dhici kara. Laakiin kan 100 milyan oo aad Bitcoin ku haysatid maskaxdaada number aad ku xaftid weeye. Cid aan adiga ahayn oo ogaan kartana ma jirto, cid kaa dhici kartana ma jirto. Qodobka afraad oo kaalinta afraad geliyay waxa weeye scarcity waxa la dhaho. Bitcoin waxay ku gooban tahay ama ku jaan go'an tahay 21 milyan. Lama badin karo, lama soo yareyn karo, lama daabici karo. Sidaad ogtihiin waddanka Mareykanka hadda lacag 6 trilyan ku dhow ayuu maalin soo daabacay. Printer baa u yaala, doolarka waa iska daabacaya sidii aad warqado u daabacatay oo kaleeto. Markaasi waxay ka dhigtay inuu doolarkii sanad walba qiimihiisa hoos u dhaco. Bitcoin ayadu waxaas way ka duwan tahay. Nambarkaasi ku jaan go'anta mar walbana way sii yaraanaysaa oo inta soo bixi kartaa sii yaraanaysa. Qodobka kaalinta shanaad iyadana ku jirta aan geliyay waxa weeye leader ma lahan, hogaamiye ma lahan. Macnaha haddii hogaamiye lahaan lahayd sida Ethereum kaleeto qof unba leader ahaan lahaa ayaa wuxuu dhihi lahaa ma isaana laga bedelo, isaan ha loo bedelo, isaan ha loo waxeeyo. Laakiin hadda iyada ninkii qofkii soo saaray lama hayo. Qof dhihi kara ama leader u ama dhegeysanaya ma jirto. Qof walba waa u siman yahay. Aniga adiga hadda u simannahay. Laakiin leaderku dhibaato leeyahay, waxbuu ka bedeli karaa, waxbuu ku tari karaa, tan ma lahan. Haddii leader ay lahaan lahayd waxay noqon lahayd sida company shirkad oo kaleeto ay noqon lahayd. Laakiin hadda iyadu shirkad ma aha. Shirkad way ka weyn tahay. Qodobka 6 waxa weeye privacy. Privacy-gu waa muhiim siiba hadda wadamada western-ka ah aad iyo aad ayay arrintan uga socotaa doodeedu oo kambaniyashu dhan tracking ayay sameeyaan. Laakiin ayada hadday Google markaa gashid waxaa dhici karta in aad Google garaysid inaad insurance raadinaysid, xayisiin insurance kugu soo yaacaysa. Maxaa yeelay waxay kula socdaan waxaad gadanaysid iyo waxaad la socotid. Laakiin tan haddaad $100 gadatid, haddaad milyan gadatid, cid ogaan karta way yar tahay ama cid la socon karta. Privacy-gaasina kan ugu dambeeya oo aan hadda rabo inaan kusoo gabagabeeyo oo ah brand. Bitcoin waxay dhistay magac ama sumcad ayay dhistay 12 sano ugu dambeysay oo aan qof ama shirkad ama dowladda maanta go'aansato inay soo saarto coin 6 calaamadood oo leh aan aysan la tartami karin. Maxaa yeelay brandigeeda ayaa mar hore faafay. Dad badan oo aaminsan ayaa waxay leedahay infrastructure aan caadi ahayn. Boqolaal shirkadood ayaa mining ku sameynaya adduunka geesihiisa kala jooga. Intaana wallet bay leedahay.
waxaas oo magaca brand ee dhistay qofna lama tartami karo ama shirkad ama dowlad in hadda soo baxday. hadda dowladaha qaarkood waxaan leeyahay coin bay soo saari doonaan oo ayagu leeyihiin yaa isku aaminaya ama yaa macnaha aduu ma gadan lahayd coin dowlad iska maamusho oo hadday doonaan soo daabici karaan ama yarayn karaan, iyo midkan qof walba iska leeyahay oo secure-ka ah oo qof walba arkayo oo cadaaladda ah, keebaa qaadan lahayd? Anigu kan baan qaadan lahaa, kolba doori lahaa. Marka 7 qodob waa 7 qodob cajiib ah oo dadka shirkadaha waaweyn CEO-yada iyo hadda ay arkayaan fishinka leh ay ugu yaacayaan, ama dowladaha qaarkood si hoose ay u gadanayaan. 7 qodob ayay arkeen, idinkuna si fiican u fahma. Hadda hadalkayga in qaarkiin idinsa fahmin baa dhici karta. Idinkuna baaritaan ku sameeya, sii baara 7 qodob aad u fahma, kadibna idinkaaba ku yaaci doonaba ama Bitcoin xiisa badan u qaadi doona. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.